badame barbaarey biyo waa la hele ambaxne badarkii abuurne berihii anfalne kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena barbaarta ee beeraha oo aan aalaba kusoo qaadano ciwaano muhiim ah oo la xiriira wax soo saarka beeraha. Maanta waxaa marti inoo ah al-Ustaad Axmed Cabdirasaaq Faarax oo ah bara sare oo ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha gobolka Banaadir. Ustaad Axmed Cabdirasaaq wuxuu ka qaatay bachelarka jaamacadda Kasala ee dalka Suudaan, halka masterkana uu ka diyaariyey irrigation engineering ee jaamacadda Jazeera ee isla dalka Suudaan. Ustaad Axmed, kusoo dhawaaw barbaarta ee beeraha. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad naga aqbashay wareysigan. Maanta wuxuu muhiimadda saara qodobkeena waraabka iyo beeraha. Waxaan ku hormaraynaa waraabka maadaama uusan jirin wax soo saar waraab la'aan. Hal su'aal aan ku hormaraynaa, bal marka hore waxaa nooga sheegtaa waraabka ahmiyadda u leedahay beeraha. ahmiyadda waraabka uu leeyahay beeraha waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha ayuu sare kor u qaadaa. Waraabka casriga oo hadda la isticmaalo waayaan hadda waxaa jiro waraab casri oo sida waraabka dhibicda drip irrigation laho. Waraabkaas oo casriga tiknoolajiyada wuxuu sare u qaadaa wax soo saarka beeraha. Geedkii biyo ku filan ayuu siinaa. Geedkii biyo ku filan ayuu siinaa. Biyahaasna khasaaro ku sameynayo in uu banaanka badiyo biyo badan ay banaanka ku soo baxaan. Geedka target of erosion ayaa la geedka xididkiisi ayuu target gareysanaa. Geedka xididkiisa biyo fiican hadduu helo mar walba oo production wax soo saarkii oo fiicnaado waa. Xasilinta wax soo saarka xilliyada qallalan iyo xilliyada la dagaalanka cunto yarida ayuu ka qayb qaataa. Waa ahmiyadda ugu muhiimsan oo iyadana ahmiyadaha mid ka mid ah waa. Waxaa fududeynta beerashada oo beeraha yaryar sida waraabka casriga wuxuu ka qayb qaataa in oo la tijaabiyo khudaarta. Waxaa lagu tijaabiyaa badan waxaa loo isticmaalaa vegetables geedaha khudaarta sida yaanyada, sida barbarooniga, sida okraha, sida waxyaabahaas ayuu ka qayb qaataa. Waraabka ahmiyaddiisa ugu muhiimsan oo loo isticmaalo oo drip irrigation geedka wax soo saar wuxuu kaloo ka qayb qaataa ahmiyadda uu leeyahay waraabka casriga in bacrimintii loogu soo daro tankiga. Bacrimintii ayaa tankiga loogu soo daraa. Geedkii marka wuxuu qaadanaa biyo iyo wuxuu qaadanaa iyo nafaqo ayuu qaadanaa. Iyadana waa qayb ka mid ah oo waraabkan casriga oo drip irrigation waraab dhibicda loo ugu duwan yahay waraabyada kale oo loo yaqaan surface irrigation iyo kuwaas kale. Ustaad Axmed, nidaamyo badan ayaa caalamka ka jira. Aadanuhuna nidaamyo badan oo kala duwan ayuu soo isticmaali jiray. Wax ma nooga sheegi kartaa nidaamyada kuwii hore, kuwii dhexe iyo kuwa hadda la isticmaalo? Nidaamyadii hore ee beeraha loo isticmaali jiray waxaa ka mid ah sida roobabka. Intaysan tiknoolajiyada imaanin beeraha waxaa loo isticmaali jiray beeraha beeraleydu waxay isugu jireen in roobabka la isticmaalo. Roobabkaas iyo ayay isticmaali jireen iyo biyaha ceelasha oo kale iyo biyo xireenada iyo waxyaabahaas ayay isticmaali jireen oo la traditionka oo waraabkii hore. Waraabka dhexaad waxaa la isticmaalaa wuxuu loo surface irrigation waana beeraha ku yaalo yobiga jinkiisa ku yaalo qarkiisa saaran. Kuwaas ayaa lagu waraabiyaa. Noocyo badan ayuu leeyahay surface irrigation kaas waxaa la furrow irrigation mid oo furrow irrigation ayaa la waraabkaas nuuciisa. Iyo mid kale waxaa jira oo loo border irrigation oo waraab oo rubac ah. Iyo mid kale basin irrigation loo. Marka kuwaasna waa nidaamyada dhexe oo beeraha saaran waaye webiga qarkiisa. Webiga qarkiisa beeraha saaran waaye oo lagu waraabiyo loo isticmaalo waaye. Waraabka casriga hadda la isticmaalo waxaa ka mid ah sida drip irrigation oo waraabka dhibicda ah iyo waraabka buufinta oo loo sprinkler irrigation ka waraabka loo ayaa la isticmaalaa. Drip irrigation kaasna waxaa loo isticmaalaa mostly inta ugu badan adoo roob sugin ayaa waxaa waaye beertaada waraabsan kartaa. Waa saadaali kartaa xilli walbo. Laakiin roobka untimely waaye unpredictable waaye masaadaali karti waqtina ma laha. Wax soo saarka beertiina wuxuu ka dhigaa wax soo saarkin high ayuu noqonaa. Waana ogtihiin maanta inta ugu badan oo beeraleyda iyadoo roob aan la sugin ayaa waxaa waaye badanaa waxaa la isticmaalaa drip irrigation ayaa badanaa waraabkaas oo casriga ayaa badan la isticmaalaa si wax soo saarkii oo high uga dhigo. Iyo sprinkler irrigation waraabka waxaa waaye buufinta ayaa la sida in oo meelaha gardeniska loo isticmaalo
in oo loo isticmaalo geedaha biyaha badan u baahan sida alfacalka geedahaasi ayaa badanaa loo isticmaali karaa. Soomaaliya marka loo yimaado ilaha ugu badan ee waraabka loo isticmaalo maxay yihiin ayadoo lagu saleynayo cimilada jirta. Waraabka ugu badan oo Soomaaliya marka la joogo ilaha ugu badan la isticmaalo waxaa kamid ah dhanka biyaha roobabka kamid ah. Waxaa kaloo kamid ah biyaha oo wabiga ayaa kamid ah oo kinaal laga soo batay daari lagu waraabiyo iyo in la isticmaalo waraabka casriga oo loo drip irrigation waraabka oo dhibicda kuwaas ayaa ugu badan. Kuwaas ayaa badanaa ugu badan cimilada marka lagu saadaalinayo cimilada loo fiirinayo cimiladaas oo cimilada waxaa kamid ah roobab badan oo soo noqda ayaa jiraayo oo aan la saadaali karin. Waxaa kaloo kamid ah roobab badan oo soo noqdo ayaa jiri oo la saadaali karin ayaa jiraayo oo soo noqdo. Waxaa kaloo jiraayo abaaro ay jiraan oo kale abaarahaas oo kale badanaa cimilada oo ay saameeyaan abaaraha soo noqda iyo roobabka oo soo noqda iyo kororka oo kuleylka oo saro kor u noqda. Waxyaabahaas dhan waxaa waaye cimilada oo ka qayb qaadana ayay kamid yihiin. Xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay ilaha biyaha wax ma nooga sheegi kartaa? Ilaha biyaha oo xaaladda dalkeena ku sugan yahay oo badanaa beeraleyda isticmaalaan oo kuwa ugu muhiimsan oo waxaa kamid ah in la isticmaalo waraabka casriga oo loo drip irrigation ayaa casri ah. Waraabkaas badanaa waxaa loo isticmaalaa vegetables qudaarta ayaa loo isticmaalaa si wax soo saarkii oo high u noqdo. Waraabkaas ayaa number 1 ah. Wuxuu uga duwan yahay geedkii biyo ku filan ayuu siinaa geedkii biyo ku filan ayuu siinaa. Kuwa kale ilaha kale waxaa kamid ah roobabka. Roobabkan waa sugnaa beeraleyda roobabka way isticmaalaan. Roobabka iyagana waa loo isticmaalaa. Roobabkan iyaguna waxaa waaye ilaha kamid ah ceelasha kamid ah oo in biyihii matoor pumping laga soo qaado oo beerta lagu waraabiyo. Wabiyada kamid ah in kanaalka laga soo qatiyo oo beertii la siiyo. Qaybahaas iyadana waa qaybo kamid ah oo ilaha waraabka oo Soomaaliya ilahan ka helno ilaha beeraleyda ka helaan marka Soomaaliya la joogo ilaha beeraleyda ay helaan waaye. Nidaamyada waraabinta casrigan la joogo waa kuwo tiro badan dhulkeena si markii loo fiiriyo oo qalal xigeen ah keebaad is leedahay wuu ku habboon yahay dhulkan Soomaaliyeed. Midka ku habboon waxaa la lahaa drip irrigation ayaa la afka qalaad Soomaaliyan waxaa lagu tahaa waraabka dhibicda waaye. Deegaan ahaan maaliyad ahaan waa raqiis. Deegaan ahaan isaga ayaa ku habboon. Deegaan ahaan isaga ayaa ku habboon. Dhanka maaliyaddana waa qof walba awoodi kara wuu soo gaban karaa oo lacag saas qaali high cost maaha. Cimilo ahaan deegaan ahaan wuu ku habboon yahay. Kaas ayaa marka ayaan leeyahay waraabka oo ugu fiican oo in la isticmaalo oo ayaan kula talin lahaa. Ugu dambeyntii waxaa soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkeena barbaarta ee beeraha. Ustaad Axmed adigoo mahadsan inaad naga aqbashay wareysigan oo nagala soo qayb gashay. Maxaad talo u soo jeedin lahayd beeraleyda Soomaaliyeed iyo dowladdaba in la qaado ficilo waxtar u leh beeraha? Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Beeraleyda talo ahaan waxaan u soo jeedin lahay in beeraleyda talo ahaan waxaan u soo jeedin lahay in wax soo saarka beeraha sare kor u qaadaan iyagoo ka faa'iideysanayo waraabka dabiiciga iyo sida roobabka oo kale inay uga faa'iideystaan iyo inay ka faa'iideystaan waraabkan oo casriga oo drip irrigation-ka iyagoo oo ka faa'iideysanayo. Waxaan kaloo talo ahaan sii lahay inay isticmaalaan waxa la dhaho solar pump afka qalaad lagu dhaho Soomaaliyan lagu dhaho. Soomaaliyan waxaa lagu dhahaa tamarta cadceedda in si loo yareeyo qarashaadka shidaalka oo motors pumping-ka oo intaa wabiga laga soo qaado motor pumping soo qaado beeraha uu sii lahay in la isticmaalo solar pumping-gaas in la isticmaalo si qarashaadka loo yareeyo oo wax soo saarka beertiina beerihiina
si sare kor u noqdaan. In la sameeyo tijaabooyinka oo yaryar oo beeraha oo la sameeyo tijaabooyin yaryar in la sameeyo tijaabooyin yaryar sida drip irrigation oo beero la sameeyo oo lagu tijaabiyo waraabka casriga drip irrigationka si wax soo saarkii high uu noqdo. taas iyadana waa waxyaabaha aan kula talin lahay beeraleyda. Beeraleyda waxaa kaloo kula talin lahay inay isticmaalaan sida waraabka casriga drip irrigationka beerahooda inay u isticmaalaan si wax soo saarka high uu noqdo. Inay isticmaalaan nafaqooyinka iyo waxyaabahaas. Inay isticmaalaan pesticide-ka sumaha noocyadooda kala duwan waxyaabahaas oo dhan oo teknolojiyadaas inay isticmaalaan greenhouse-yo ay ku xiraan waraabka drip irrigationka oo isticmaalaan inay sameeyaan open field banaankii ay ku xiraan drip irrigation waxyaabahaas si wax soo saarka beerihii high u noqdaan. Talada kale aan u soo jeedin lahay dowladda waxaa waaye inay sameyso iskaashatooyin oo inay sameeyaan kooxo iskaashatooyin ah si oo wax soo saarka beerihii ay kor u noqdaan. Inay sameeyaan dowladda tababaro iyo cilmi baaris tababaro loo soo jeedinayo dadka beeraleyda ah si ay u fahmaan shaqada ay qabanayaan wax soo saarkiina u noqdo high. Talooyinka dowladda u soo jeedin lahaa waxaa kamid ah kow inay sameeyaan maalgashi ay maalgeliyaan dadka beeraleyda ay u keenaan drip irrigationka iyo waxyaabahaas qalabyada casriga oo beeraha loo isticmaalo waraabka casriga inay ku maalgeliyaan si u dhiirigeliyaan wax soo saarka beeraleyda high u noqoto. Qodob waaye. Qodobka labaad in la sameeyo seminaaro iyo tababaro loo sameynayo dadka beeraleyda si wax soo saarkooda high u noqdo. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad in la sameeyo iskaashatooyin iyo kooxo si oo wax soo saar u qabtaan dadka beeraleyda si wax soo saarkii oo beerihii oo high u noqdo. In dowladda ay keento beeraleyda u qaybiso abuur tayo leh si wax soo saarkii oo high u noqdo. daawadayaal waxaa intaas kusoo gebgabaynaynaa barnaamijkeena barbaarta iyo beeraha oo uu marti inoogu ahaa Ustaad Axmed Cabdirasaaq Faarax oo ku takhasusay waraabka beeraha. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waa anigoo ah Nuur Faarax Cumar oo idinku dhaafaya nabadgelyo iyo tasho oo tacbo. Ustaad waa mahadsan tahay. Shukran.